gudida abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salel ayaa raashin gaarsiiyay deegaanada kala duwan oo ay ka mid yihiin meelaha abaaruhu ay saameeyeen waxaana gudidaasi ay ka warameen raashinkaasi noocyada uu ka kooban yahay iyo meelaha ay ka yimaadeen sidoo kale wax iyaguna halkaasi ka hadlay Suldaan Ibrahim Dacar iyo Rooble Xasan Wacay waxayna ka warameen meelihii ay raashinka ka soo qaybiyeen in Ilaahay gacmihiisa inagu baahi tiro oo abaaraha inaga jabiyo oo roobka inoo liso yaa Ilaahay ka baryeena aamin subhanahu wa ta'ala halla toobad keeno war salaad roob doona halla tukado ceedda intaad fariisatiin oo ku tukatiin Ilaahay baryo waxa weeyaan halkan maanta waxaan idinku qaybinay idinku guddoonsiinay waxa weey 9 ka qof raashin tiradiisu ay tahay 70 kiish 70 haaf oo daqiiqa iyo 70 haaf oo bariisa iyo saliidoodii wata ayaan idinku guddoonsiinay intii ay gaadhayeen waa intaan idinku fariisinay idinku filaatay run ahaantii waxaan aad iyo aad maxay haydaanay ugu faraxsanahay inayna wax badan oo dibadda joogo waxa ka go'een ayna jirin insha Allah idin barakeeyo raashinka dad walaalihiina ayaa idin soo diray oo ka soo ururinay aqaanay gudidaasi ma aha waxay idin keeneen wax dawladdu keentay wax cid kale keeneen ma aha dad walaalihiin oo gobolada Awdal iyo Salel u dhashay iyo ganacsatayaal reer Geeso jaamac Umar ka mid yahay ayaan maxay haydaanay markii aan miidiyaha ka qaylinay ama aan ummadda ka codsanay inay walaalahooda abaaraysan ay caawiyaan ayaa maxay haydaanay idinku soo tabarucay وهذا العافي TV qaranka magaalada Boorama